وتهاي ولي waxaad daawanaysaa barnaamijka argalka xaqiyarteena la socotaay hadii aan qodobada kale oo aan idin haya aan sii guda galo xarada qaxootiga Dadaab ee waqooyi bari Kenya 250,000 oo qoys oo Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa ama ruux inay u tahay dadkaasi deegaan ay ku hoydaan xaradan ayaa bari ahayd xariyaha ugu waaweyn qaxootiga adduunka waxaana ku noolaa dad gaaraya ilaa 500 oo kun taasi oo dad fara badan ay isweydiinayeen noloshooda in mar uun ay ka bixi doonaan xariyaha qaxootiga laakiin sanadihii ugu dambeeyay dad ayaa ka laabanaya xaradaasi laakiin waxa jira dad kale oo xariyahaasi dib ugu soo laabanaya oo nolosha Soomaaliya ay ku adkaanayso qisada aan idin hayaahi way ka duwan tahay dadkii horay ugu noolaa xarada Dadaab oo ku taala waqooyi bari magaalada Muqdisho sida la socoteen ba waxa ka dhacay dil xanuun badan oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay si weyn uga murkeen kadib markii dab la qabadsiiyay marxuum lagu magacaabi jiray Axmed Mukhtaar Saalax oo loo yaqaanay Axmed Dowlo dilka ninkaasi Allah u naxariistee waxa uu yimi kadib markii wiil uu adeer u ahaa uu guursaday gabar kale oo ku nooleed Muqdisho laakiin sababta haybta la xiriirta darteed ay noqotay in isaga loo dilo maadaama qoyska ama Soomaalida waayidii ugu dambeeyay ba iskala saarsaarayeen hadda qoyskii ninkaasi oo gacanta ku hayay oo ahaa caruurtiisa iyo haweenkiisa ayaa lagu soo waramayaa inay soo gaareen xerada qaxootiga Dadaab ee waqooyi bari Kenya kadib markii ay ku noolaan waayeen Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho oo qudhooda la sheegay xaaladda dhinaca ammaanka inay ka soo food saartay wariyaha RTN uga soo waramay xeryaha Dadaab ee waqooyi bari Kenya Bashiir Gaxnuug ayaa haddaba qoyskaasi ku booqday deegaanka ay ka degan yihiin Dadaab waxana uu ka waramayaa noloshooda iyo dareenkooda sida uu yahay heladii allaha u naxariistay marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo lagu naanaysi jiray Axmed Dowlo oo ahaa marxuumkii lagu gubay magaalada Muqdisho bishii December sanadkii tagay ee 2018 ayaa ugu dambeyn soo gaadhay gudaha xeryaha Dadaab waxayna TV-ga RTN oo booqday hoyga ay ka degan yihiin xerada qaxootiga Xagadheer ay uga warbixiyeen xaaladooda nololeed iyo koo sheegay inay xaalada amni darro keentay gudaha xeryaha Dadaab balse haatan aysan weli hay'adaha samafalka ka helin qaabilitaan deganaansho aabaha dhalay Axmed Dowlo oo ahaa marxuumkii la gubay iyo walaasha marxuumka oo sheegay inay muddo ku dhawaad 3 bilood ku sugan yihiin gudaha xeryaha Dadaab ayaa dalbanaya kaalmo bini'aadanimo aniga ah Mukhtaar Saalax wiilka oo dhintay aabihiisa ah Axmed Mukhtaar Saalax aliira Mukhtaar Saalaxna waa aniga makast wiilka la dilay aabihiisa aan ahay sababta loo dilay wiil oo asaga adeer u yahay gabar oo guursaday darteeda loo dilay Axmed Mukhtaar Saalax aliira wiilkayga marka sababta loo dilay wiilka gabadha markuu guursaday aliira ma qalanteen ma guursan karo ma guursan karo yireen waa habarta aabeed waabana siiyeen cidda aabana siiyay laakiin habarta la celin waayay fidnadan habarta ka dambaysa wiilkayga lagu dilay aniga gacanta igu hayay wiilka markii la iga dilay aan waaba inda beelebo naxdintaan naxay ilaa inda ilmootay inda ebrey noqdeen ilmihiisa 17 waaye wasaga aabo ah way joogaan dadna xagay jiraan waan nafaalna la soo orday inta loo yimid kuwa xaq jirana ayaan warba laga maayo marna waa meel ay ku hoydaan marba meel ay ku hoydaan xabsi daraadeed magacaygu waa Farxiyo Mukhtaar Saalax oo ah marxuumkii la gubay walaashiis ka yar marxuum Axmed Mukhtaar Saalax Axmed Dowlo walaalka Ilaah u naxariisto inta dhimatay Ilaah u naxariisto arin ka bilaabatay lamaanihii qarniga wiilkan iyo gabadhan aan gacanta ku haayo wiilka aan ahay eedadiisa oo ujeedkaygu uu yahay Soomaaliyan aan ka imaanay waxaan nahay dad qaxooti ah hadartan waan dad ban saasayta dul saaran ku nahay 15 qofood baan ka koobanahay family-go dhan ma ay soo bixin daruufo awgeed nafteena la soo cararnay aan la soo baxsanay dadkii walaalkeen marxuumka kan ah oo gubay ayaa ilaa ay hadda raadsanayo waxaan ka hadlayaa carruurta xagga ee jirta xamar inay nabadgelyo ay helaan nabadgelyo maayana waa la raacdaysana waa la gumaadaya reer Mukhtaar oo dhan ama la arki karana la yiri
dhanka kalena xaaskii marxuun Axmed Dowlo Farxiye Axmed Qaasim iyo qaar ka mid ah ilmaha marxuunka oo iyana la hadlay TV-ga RTN ayaa ka warbixiyay xaaladda iyo duruufta ku haysata gudaha xeryaha Dhadhaab iyagoo muxsiniinta Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka ka dalbaday kaalmo bini'aadanimo oo degdeg ah. magacayga waa Farxiye Axmed Qaasim oo ku nool xaafadda Xagardheer qaxootiga. waxaan ka imaanay dalka Soomaaliya Muqdisho. waxaan ahay marxuumkii Soomaali lagu dilay Axmed Mukhtaar Saalax xaaskiisii aan ahay. waxaanan haystaa 4 caruur. waxaa ila socda aabihiis iyo walaashiis. aabihii markii la dilay wiilkiisa naxtinta oo ka naxay indhaha ayuu beelay. lugihiina waa waxba kama soco karo. 1 saac 2 saac meesha 1 saac loo soconaa 3 saac u soconaa. kaadida xataa ma cisho karo waayo naxtintii wiilkiisa oo ka naxay aawadeed. teeda kaleento annagii oo nala sii dilay dadkiina dilay xataa cadaalad aan la hor keenin. Soomaali isay sharci oo jirin dawladda ay jirin aan la leeyahay islaantii baangada yar sulka ugu dhufatay racfaan ay qaadatay kii waranka galiye racfaan baa u furnaa la leeyahay. tii shidaalkii ku shubay magaalada Muqdisho geeska jooga gabadhii taraq u shidwaa la soo deeyay racfaan ay wada qaateen la leeyahay cadaalad dari annagii waa nala raadsanayaa. waxaa la leeyahay familkaas hal qof ma dhaafeen say u yihiin reer Mukhtaar. aabe yaalada lama diiday aabe waa lagu sidii islaanimo ka baxaa loo dilaabe aabe warana la kali bisiina loo filfile laa naxariista aabe qabrigiisa ilaahay oo qowjiyo. Bashiir Gaxnuug RTN